السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdilcaziz Cabdullaahi Siraaji. waxaan ahay marxuum Cabaas Cabdullaahi Siraaji walaalkiis ka yar. Videogan maanta waxaan usoo duubayaa ummadda Soomaaliyeed dunida dacaladeeda meel walba ay ka joogaan. waxaa jiro dad u badan tim farmaajo oo ii soo diraayo fariimo iyaguna soo diraayo inboxkayga oo i weydiinayo waxyaalaha keenaya farmaajo inaan u haasto geeridii Cabaas. maantadan ay nala hadlaayo geeridii Cabaas waxaa kasoo wareegtay 200 oo maalin, 4800 oo saacadood, 288 daqiiqo aa kasoo wareegtay. ilaa hadda ay nala hadlaayo wax cadaalad haba yaraatee aan idin dhihi karo oo ii muuqataa ma jirto. waxaanan ka helnaa cadaalad farmaajo, waxaanan ka helnaa cadaalad golaha wasiirada qeyr hogaaminaya, waxaanan ka helnaa cadaalad xildhibaanada 300 kor u dhaafayo. wax yar ayna la wadaaga wax yaroo kooban oo kiiskii Cabaas ku seeg waxay tahay waxaa loo soo qabtay 2 nin markay noqoto toogashadii. waxaa shaqada looga qaaday 1 nin ee ilaalin u haayeen. 2dii nin loo soo qabtay mid ka mid ah dambi waa lagu waayay. nin baa xabadka u qaraacday oo dhahay anigaa dilay, aniga xabad ku riday, see rabtaba ha u ahaato. ninkii asaga ahaa waa la maxkamadeeyey. maxkamaddii sare waxay ku riday the higher court qaal noqda dii af Soomaaliga si saxda ugu sheegay maxkamadda sare ee Supreme Court kiisaas uu kala kasay, laakiin the higher court markii hore waxay ku xukuntay dil. wuxuu ka qaatay appeal mise racfaan midka u taqaanabo. maxkamadda sare Supreme Court ku la aaday ayadana sidoo kale dil bay ku xukuntay. kadib buuq badan, muran badan ay familkii ninkaas uu ka dhashay ay subiyeen. markaan familkii leenahay ma ahan qabiil, shakhsiyaad qaase ee u horeeyaan niman xildhibaane ee u horeeyaan niman wasiiro ka ah dowladii hore. more of it waxay u doodayeen ninkan inuu dambiile ahayn. waxay ahaataba ninka shuuta ahaa maxkamadda darajada koowaad u weynaa waa soo baasmariye, liibaan waa baasmariye. waxyaalihii loo baahnaa don documentary ah ninkaas lagu qisaasi lahaa way hagaajiyeen. aabihii dhalay Cabaas Cabdullaahi Siraaji oo anigan aabihii ah warqadaa loo keenay inuu sign gareysto in wiilkiisa loo qisaasayo. wuu sign gareyste, kaliya waxaan u baahanaa waxaa waaye u dhahay in laga qisaaso. nimankii marka dastuurka Soomaaliya wuxuu dhigaa in madaxweynaha uu saxiixo 200 maalin ayna sheegayo 120 beri ka badan warqadaas waxay taalaa xafiiska madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ilaa hadda wax justifiable uu sheegayo uu saxiix lahayna ma jirto. kaliya intaan la soconaa waxay tahay inay warqadaas taalo xafiiskiisa. maanta berrina uu nagu gudbinayo. shalay golaha xildhibaanada kalfadhiga ay lahaayeen waxay aga doodeen walaalkeen qalbi dhagax xabsigu ku jiro Soomaaliya oo dhan ku jirto. aniga koow waan la dareemaa xanuunka wallahi alcadiim tuu ku jira geeriya dhaanto. ninkii qabri la geeyo dhinto laga samre. marka farmaajo sababtu u saxiixi la yahay waxay ka tagi waysay in qabiil iyo qori afkiisa bila Soomaaliya loola taagan yahay. farmaajo fariinteeda ku soo gaarto daraadna Facebook aan kugu soo post garay. daraad markaad Cabaas u baahneed dhalinyarada ku hogaaminay habeenii maalin waa baryeysay, telefoon u soo direysay. waxa aad u xanuun badan Cabaas markuu xildhibaan soo noqday inuu xaafadda noogu yimaado Nairobi. aabihii hooyaday u yeereen ee dhaheen Cabaasow dhaqanka Soomaalida xasuubin kaasoo in markii la soo doorto wadankooda ay lacag ku gataan.
cabaasow aabbo waan kuu duceynay rabitaanka shacabka ka u meel mari cabaasow aabbo waan kuu duceynay 2 milyan oo qaxootiga ku jirto meel ay ku noqdaan loo hagaajiyo meeshay dadka iyo dalka iyo danta iyo diintaba ku wada jirto u codee xoogiisa maalkiisa cilmigiisa intaba iskugu geyso oo kugu geey xafiiskaas ballanqaadyadaada waxaa ka mid ah inaad cadaalad u helayso cid walbo Soomaaliya lagu xadgudbaa cabaas cadaaladda u hesh iska dhaafe cadaaladiisi xafiiskaada abaar uu ku dhaxan rabaa mid ogsoonow dhibka maanta Cabdicasiis Siraaj u geysanayso inuusan keligay dhaawicin laakiin uu dhaawici doono in mahaada day ka badbaadaan in awowga u tahay dhaawici doono mid ogsoonow cadaaladda walaalkii maanta u waysay in berrito wiilkaada wiilkiisa loo waan doono mid ogsoonow inaad dhimanayso maalmaha ka mid ahna la wada xisaabtami doono mid ogsoonow warqadda maanta saxiix laadahay inay tahay mid ku cadaab galeed misana cadaabta kaga badbaadi lahayd mid ogsoonow ina adiga cabaas kulmi doontiin oo ku weydin doono farmaajo ballankeeni masaan buu ahaa ilaahna agtaada taagan yahay lagu fiirin doono aan ka jawaabi doonto markaan farmaajo ka soo gudbo waxaa kaloo aan haastaa golaha wasiirada ugu horeeya Khayre waxaa tahay dadka sababtu ah in cabaas la dilo warkaygan la yaab iyo kugu noqon sababta waxay tahay adiga oo fadhina waxa ay sheegtay in golaha wasiirada u sheegtay hadda hel lahayd 10 wasiir oo cabaas oo kaleete in wadanka hal sano ka yar nabad loogu horseedi lahaa adiga amaanay ka ahayd laakiin ma ogtahay inaad tahay qofkii ugu horeeyay oo cabaas manifestada ku shaqeynay manifesto waxaan ka wadaa Soomaaliya qorshihiisa shaqo ee 5 sano soo socda 4 sano soo socotay inuu u gudbiyo wasiir walba ay tahay ra'iisul wasaaraha Khayre wuxuu ahaa ninka gacanta ku dhigay oo loo geeyay cabaas qorshaha uu ku shaqeyn rabay 4 sano soo socota waxa adiga afkaada iga sheegtay inuu ahaa qofka kaliya ka dhex aragto wasiiradaada leh riyo Soomaali oo nabad leh riyo Soomaali oo qof walba uu siman yahay leh riyo qof walba meeshu ku soo koray meeshu ka imaaday ayadoo la fiirinayn uu Soomaali jaga ka qaban karo taas waxay u sahashay cadawga cabaas una badan dad dhulkooda ka haasto dad kaleeto manifestada cabaas waxa ku jirtay 2 sano ugu soo horeyso cid walba Soomaali oo gurigooda xoog lagu haasto in gurigooda lagu soo wareejinay arintii ayada aheeda waxa la wadaagtay cadow degan guriga ayaga leheen wasiiradaada shalay waxay ahaayeen cabaas saaxiibadiis ku digooda daan arkin 99% of them waa arkay marka xafiiskaada kugu iimaanay 99% ga arkay ku digooda waxay dhahayn cabaas Allah ya raxma nin wanaagsan ma waaro hadii og yihiin nin wanaagsan inuu waareen maxay cadaaladiis ilaa hadda wareegta ka soo baxday xafiiskaada oo cabaas cadaalad loogu dalbanaa uu lahay shalay mid walbo yaar ku xidhay cabaas xaqiisa ma dudsamay aniga shaqadeed u waan karo adiga la fahaad waxa dhahday ina xafiiskayga iyo shaqadeed aan ku way iga fudud ina cabaas cadaalad waa ma waxa u waysay ina warqad furan u dirto madaxweynaha transparency leh ku dalbanayso tasaasti Abdullah Sheikh Siraaj Abihi dal Cabaas oo soo codsaday ma golahaada wasiirada waxay awoodi waayeen inay Cabaas u helaan cadaalad annaga dawladdaada ma lihin in muu Cabaas ka tagay biil hal siiyo ana 20 jiro intaan la dhin ana biilana ku dhahabeenkiin oo ku sheegay agama baahna xaq Soomaali badan buu xaqeeda meeshaas ku maqan yahay agama baahna biil
laakiin kaliya waxay u baahan yihiin anigana u baahanaha in cadaalad loo helo aabahood gacan ku dhiiglihii dilay in loo qisaaso ma awoodi waysay in shacabka Soomaaliyeed haddaad tabar misana awood cadaalad uga hesho wiilkii yaraa wasiirku magacaawday yana assembly markaa tagtaa dhahaysay waxaa sharafiye inaan magacaawe wiil asoonan ka seenin cilmi aqli lahayn Soomaali ka carray xaraq waxay ku kore jaamacad soo bogay wadanka dib ugu soo laabtay 31 sano bas jiro inaan wasiir magacaawe sharafay ku yeedina yana assembly asaa ka dhahdo laakiin waxa ka sii sharaf badnaan lahayd markaa dhahdo cadaaladina oo helay maysan dhicin cadaaladdan ka filay lagama helin hadalkaadu wuxuu ahaa lablakac ballanqaadkaadu wuxuu ahaa lablakac 200 maalin wixii lagu qaban waay 200 san laguma qabanayo 4800 saacadood wixii lagu qaban waay 4800 maalin laguma qabanayo 288 oo daqiiq waxaad ku qaban waysay ma kasta waqtiga qabanayso golahaada wasiirada kudi hadda Nairobi ay imaadaan misana Muqdisho joogaan kan sarag muxuu dhahaa Abbas cadaalad waa loo heli ilaa goorma xanuunkan dareemi doona ma ogtahay Abbas weydis inay habeenkii seexaneen ma ogtahay mar walba inay dhahayso ninkii ma la dilay mise way sii daayeen fadlan qalbiga maanta dhaawacayso waa qalbiga Cabdicasiis Siraaji laakiin ogaw in qalbiga walaalkiis walaasheed ayadana saa loo dhaawici doono dhammaanta indhaha ka qabsato in Abbas cadaalad u raadiso Cabdicasiisna qalbigiisa daawayso ani ma kulay xooleysi ani ma kulay bil ibix inma bileysi kaliya waxaan ku leeyahay Abbas cadaalad aan helo haddaadan awoodin sharaf aan kugu faano ninkii qeyra xafiisku ka tagay walaalkii dartiisu naga tagay inuu cadaalad u helo kii kale to imaadana sharaf darre ku noqon inuu cadaalad waa Abbas qaybta saddexaad nimankan la hadlaa waa nimanka ugu daran waa xildhibaanada meesha ku jiraan Abbas wuxuu ahaa walaalkood Abbas wuxuu ahaa saaxiibkood Abbas wuxuu ahaa nin mar walbo wanaagooda ka talnaa waxa calal xumo wax laga ooyan inay Abbas cadaalad waayaan hatta aan arki waay hal maalin kalfadhigooda looga doodaayo maxaa Abbas cadaalad loogu laay nimankii shalay u doodaaye ninkii Abbas dilay dambiile ma aha mahad salaada ugu horeey ninkii xildhibaanka I know cilmi yara fara badan way ku jirtaa iyo jahli fara badan isla haddadan wuxuu naga dhaadhicin rabaa inuu muwaadin yahay walaalkay shalay qaade uu Ethiopian u dhiibay waa wada ognahay yaa keene yaa xamar ka soo dejiyo daraad markuu wasiir ka ahaa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dambiile ma yahay walaalkay qalbi dhagax maanta dambiile noqday 77kii markuu u dagaalamayay Soomaali safka hore ku jiray muwaadin ahaa miya maanta muwaadin ma aha adigii shalay dhahayse ninka Abbas dilay dambiile ma aha adigii shalay inta soo qaada xamar keente qalbi dhagax dhiibay haddana shalay golaha xildhibaanada dood ula soo taagnaa qalbi dhagax u doodayso qalbi dhagax anaga u wada doodeen inuu noo dhintaana noo roon intuu xabsi noogu jiri lahaa Ethiopian ee maalin walba cidi ka siibi lahaayeen walaalkii qalbi dhagax oo kula dareemaa in ma haadan hadda dhimatata Soomaaliya dhan u nool xildhibaanada ma waxa awoodi wayseen hadda cadaalad u wayseen Abbas inaad hatta haba yaraatee
aa ka keentiin mooshin looga doodayo dilka Cabbaas nimayow dhagaysta maanta meesha fadhidiin beri anaa fadhiisanay haddaan fadhiisanina kaleeto anigu kaleetaa fadhiisanay war cadaaladda ka tegina war xaqaa ka tegina war nimayow waddanka annaga waan dhiman doonaa waana ka dhammaan doonaa dadka aga tegi doontiin misana aga dhammaan doontiin ha noqdaan dad nacfisto war ilaahay ka cabsada war dhiig isku yeela dhiig isku yeela dhammaantiin waa ogtihiin sababta Cabbaas loo dilay inay tahay siyaasad sababta Cabbaas loo dilay inay tahay inteeda biyo waxay Soomaali waxay dhan biyo intay ku soo gaarnaa la iska moosaa wiilkan horumarka Soomaali u soo wada intaysan soo gaarin aan moosno aan noloshiisa soo gaabino alxamdulillah aniga iimaan leeyahay daraadan Facebook waxaan ku soo qoray dulmanaha maanta waa isqarxiyaha bari dad badan waxay soo weydeen ma isqarxin rabtaa may waxaan aaminsanahay 300 oo xildhibaan oo meesha ku jirto maalintay ka jawaabayaan waxay cadaalad Cabbaas ugu raadin waayeen inaan ilaahay agtiisa taagnaan doon ana dhageysan doono jawaabtay bixin doonaan waxaan ahay cunug diin lagu soo kori inmiisana rajeena inuu ku korsado ma ihin inuu iimaankiisa yar yahay waa ogahay naf walbo inay dhiman doonto maalinkeeda inay dhaafi doon xaq lagu diliyay xaq darro lagu diliyay laakiin waxa sharaf darro inay bari wajiga ilaahay loo istaagi leedeen inuusan meeshan yaal anigii ila dhashay aabihii dhale hooyadii dhashay aa ku didheen maya mag ma rabno maya kaliya waxaan rabnaa ninkii Cabbaas dilay baritan qof walba wanaagsan buu dilay hanoola qasaaso war adiga xildhibaanka Cabbaas saaxiibkiisa maxaad u fahmi laadahay haba yaraatee mooshin maxaa ay keen laadahay maxaa aga doodi laadihin nimanka dadka dulminaa xildhibaanada kugula jiro maxaa u noqoteen liin biyo lagu tifji caano lagu tifji liinta caano fara badan daa ku tifjisataa kala goynayso badankiina waxaa isku tilmaamaysin dad wanaagsan xabadaha xun sida mahad salaad oo kaleetane markuu hadlo ku digiin oo u qushuucaysin ilaah ka cabsada maalinkaas ilaah hortiis la wada taagan yahay aysan noqon maalin aan faraxsan adigana aad qushuucsan tahay walaalkii ataa xildhibaanow markaan faraxsanahay inaan faraxsanaataan raba adduunyada way yar tahay kiina ugu yar 30 sano jira waan is ognahay waqtiga ilaahay laakiin bini'aadanka maanta jooga cimrigiisa ugu dheeraaba 63 sano lagu qiyaasay wixii dhaafaa hal iyo 10% of them dhaafayso war waxaad ku haro wax yar aba ku waysid shaqada laakiin cadaaladu raadi walaalkaada xaq darrada lagu dilay waxa ku soo haray dhalinyarada Soomaaliyeed wallahi waxaa nasiib darre istaastigii ugu dambeeyay inuu sheegay 71% inay Soomaali waxa jooga Soomaali inay dhalinyaro tahay dhalinyaroy ninkii Cabbaas dilaadan gacmaha inta as qabsanaan cadaalad u raadino Cabbaas waa ka meel kaari karnaa waxaa nasiib darre dhalinyarada Soomaalida inay noqotay laablakac labada beri ugu horeyso wax walba ay ka react gareynayaan misana way ka falcelinayaan wixii ka dambeeyay laakiin falceliskooda ma leh qalbideena ma kasay waxaan qaas ula hadlayaa dhalinyaradii qaxootiga ku soo wada kornay alxamdulillah ma ahayn dooq annaga aan dooran inaan qaxooti ku soo korno laakiin haddana waxaan tusnay dadkii shalay waddankeena naga barakiciyay meel walba ku noolaano inaan soo noqonayno aan horumar gaarsiinayno waddankeena waxaan isdhihi jirnay markaan joogno xariyaha wiilkan wuxuu ka imaaday A7 kan wuxuu ka imaaday A6 maayna qabiil maan isku yeeri jirnay kan dhagaxley uu ka imaaday kan xaga dheer uu ka imaaday isdhihi jirnay maayna kan gobol hibil uu ka imaaday kan gobol hibil uu ka imaaday isma dhihi jirnay waxaa sharaf darre inaan arko ay soo qorayaan mar walbana soo boos gareynayaan dad og inay taalo warqadii Cabbaas ninkii dilay lagu qisaasi lahaa farmaajo xafiiskiisa haddana halna marnaba aan ka hadlihayn aamuse
niyahow haddaad tahay dhallinyaro anigoo kaleete waxaa maanta dareema adigana beritaa dareemi doontaa haddaanan maanta iska qaban, haddaanan maanta gacmaha isqabsanin, dhallinyarnimo aan isku qabsanin oo qabiilan dhinac iska dhigin, berito adiga keligaadii hogbiyi kugu soo geli doonaa anigoo banaanka taagan, meel engegan taagan. farmaajo madaxweynaheenna waa, laakiin haddane lagama maarmo inaa asagane aan la hadalno, aan runta u sheegto inuu yahay nin cadaaladda ka tagay, ballanqaadku shalay noo suubinayo inuusan maanta suubinayn. dhallinyarada markaan la hadlaya waxaa ku jirto 72 xildhibaan oo da'da dhallinyarnimada ku jirto. urur suubsada oo u dagaalama xaqa dhallinyarada. maanta ciilka Cabdicasiis Siraaji la badaayo beritiisan adigu qabsan. dhib walbo aniga aan maro waxaa iga qiimo badan dhallinyarada Soomaalida oo dhibka ka baxda. kan maanta haasta adigu beri u qabsan karaa. mar labaad, mar saddexaad, mar afaraad waxaa idiin sheegaya ummadda Soomaaliyeed sida hadda dowladda iyo wadada ay ku socoto day ku socoto. cadaalad walaalkii loo helay iska dhaafay. Soomaaliya dhan inay cadaalad xumo u dhimaan doonto. wanamayo ilaahay u noqono xaqa Allah na tuso. dad badan oo waxaa jira qulubtooda laga dhaadhiciyay inay reer Siraaji dhiig qaateen. Cabbaas dadka la shaabahay hooyada lahaa ninka ugu yar aniga intii taqaano nin maanta Cabbaas dhiig qaadanaya mihi, nin maanta wadaniidnimadiisa ku bedelanayo $2,000 oo la siimiyay. Cabbaas dhiigna lagama qaadanayo, qabiilna uma fadhiisanayo. Cabbaas waxay Soomaali u hayay ka badan wuxuu qoys ku hayay. niman yahow jiifkaan ka kacno, aan noqono dhallinyaro u dagaalanta xaqa walaalkood, u dagaalanta xaqooda. guli gobonimo idin rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fariinteeda fariinta xigto wayna la soo wadaagi doonaa, waxayna noqon doontaa kayska Cabbaas inta face u soo maray, inta qof oo tuhun iyo far ay soo gashay inaa waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ina la wadaago. ugu dambeyn qodob go'aankiisa aan gaaray kuna socdo dowladda Soomaaliya. haddii Cabbaas u waysin cadaalad ilaa bisha December, waxaa iga ballan inuusan lafiis igu jireen xamar. intaan qabrigiisa soo faqdo lafiis aan geysan doono meesha ku dhashay afmadow mise xariyaha qaxootiga aan geyn doono. ilaan ma mudno meel cadaaladiisa lagu waayo laftiisa inay ku jirto. marka waxaan ka rajeynayaa Soomaali waxay tahay inaa cadaalad wada helno. dowladda farmaajo haddii cadaalad Cabbaas u wayso uma helaysa 300,000 oo maalin walba ku dhammaanaysa meeshooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.